barakaatu dhammaan marti sharafta madasha ka soo qayb gashay aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan idinka mahad celinayaa waqtigiina waa idinka mahad celinaynaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa waalidiinta dhalay carruurta aragga naafada ka ee sida habsamida leh quruxda badan saaka u soo xaadiray carruurtooduna goor hore soo xaadiriyay intaa kadib haddii aan iskiin baro magacaygu waa Xamdi Cabdi Sogsog ahna gudoomiye ku-xigeenka ururka hablaha aragga naafada ka Tafbalaan Gaaraleys waxaan maanta ka cudur daaranaynaa iyadoo ay naga maqan tahay gudoomiyihii ururka ayaa Saleebaan Nuur oo magaalada ay ka yara maqan tahay balse waxaan isku dayayaa inaan booskeedii iyo kaygiba wada buuxiyo insha Allah Allahna ha inagu asturo intaa kadib waxaan u gudageli doonaa ururka Tafbalaan Gaaraleys yaa asaaskiisii ururkan waxaa la aasaasay 2019 bishii 9aad 20keedii waxa uu jiraa muddo sanad iyo 7 bilooda dhammaan xubnaha ururka waa hablaha aragga naafada ururkan waxaa ku midaysan hablaha aragga naafada ka ee ku sugan dalka dibadiisa iyo in ka mid ah hablaha aragga naafada ka ee ku sugan dalka gudihiisa ururka muddadii uu jiray waxa uu soo maray marxalado kala duwan waxaanu soo qabtay hawlo badan balse haddii aan wax idinka taataabto muddadii ururku uu jiray shaqooyinkii ugu waaweynaa ee uu qabtay ciidii Ramadaan ee aynu soo dhaafnay sanadkii hore ururku waxa uu ciidsiiyay 20 carruur oo kala jooga gobolka Maroodijeex iyo gobolka Togdheer 10 gobolka Togdheer iyo 10 gobolka Maroodijeex ciidaas shakhsiyaad kooban oo Ilaahay dartii wax u soo dhiibtay mooyaane cid naga gacan siisay ma jirto ka soo gudub ciidii Carafo ee soo dhaafnay ururku waxa uu ciidsiiyay 50 carruur kontonkaasi carruur waxa naga gacan siisay ciidsiintooda mu'assasada khayriga Al-Nuur Charity ee fadhigeedu yahay dalka Qatar intaa kadib ururku waxa uu fuliyay maalgeliyay 11 hablood oo aragga naafada 11 hablood maalgelinta uu fuliyay waxa uu talagalay inay ku ganacsadaan oo ganacsi ay ku abuurtaan maalgelinta waxa naga gacan siisay isla mu'assasadii Carafo naga gacan siisay ee Al-Nuur Charity ma sha Allah 11 hablood waan ku guuleysanay waa 11 hablood hadda ganacsadayaal oo shaqaysta alxamdulillah Allah ayaa nagu guuleeyay intaa kadib bishii makayna dhaaftay ee Abriil dhexdeedii waxaanu daahfurnay barnaamij ballaaran oo la yiraahdo Naafakaab barnaamijkaas awal ururku wuxuu adeegi jiray haweenka iyo carruurta aragga naafada ka balse barnaamijka waxaanu ka dhignay barnaamij ay ka soo qayb galeen naafada qaybaheeda kala duwan haday yihiin dhinacii cagaha haday yihiin dhinacii indhaha haday yihiin dhinacii dhagaha haday yihiin dhinacii maskaxda waxa uu ahaa barnaamij u daahfuran dhammaan naafada Soomaaliland meel kasta ay joogaan barnaamijkaasi waxa uu daarnaa barnaamij afurina waa tii nagu soo food lahayd bishii barakaysaneed ee Ramadaan marka waxaanu gaarsiinay qoys kasta raashin dhameystiran oo uu haysan karo 2 bilood waa qoys kasta haysta ilmo naafo ah ama qof naafo ah waxaanu gaarsiinay raashin dhameystiran oo haysan karaan 2 bilood guud ahaan barnaamijka Naafakaab dadkan wax gaarsiinay waa 450 qof oo kala jooga gobolka Maroodijeex iyo gobolka Togdheer waxaad isweydiin doontaan talo ururku ugu badan yahay gobolka Togdheer iyo gobolka Maroodijeex balse waa dadkii ugu badnaa ee aanu helay aragga naafada waxaanu xulnaa mar walba dadka ugu jilicsan dadka aan hayno maanta ay taariikhdu tahay 5tii bishii 5aad 2021 bisha Ramadaanna ay tahay 23 maalinimo Arbaca waxaanu ku sugannahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaanu ku sugannahay Hotel Adams oo iyagana aad ugu mahadnaqayo hoolkan aynu fadhino sida quruxda badan loo soo hagaasimay iyaga ayaa si tabaruc oo free ah noogu deeqay Hotel Adams ayaan maanta ku sugannahay waxaan daafuri doonaa barnaamijkii ciidsiinta ee haweenka iyo carruurta aragga naafada ka doorka waxaan isla afkaranay
haddaanu nahay xubnaha ururka hablaha aragga naafada ka inay aanu caruurta oo kaliya ciidsiino maadaama ay tahay ciidii ciidal fidri ee caruurtu ay ciidi jireen howlkan maanta waxay nagula sugan 13 caruura oo aragga naafo ka ah waliba wiil yar oo ka mid ah waa paralyze guud ahaan barnaamijkan ciidsiinta dadka aanu ku ciidsiin doonaa ama caruurta aanu ku ciidsiin doonaa waa 25 toban burco ah oo biritoole insha Allah burco laga daafuri doono barnaamijka iyo 15 hargeysa barnaamijkan 15 qof hargeysa aan ugu talagalnay maanta 12 bay nala fadhiya 12 kaasi waa 12 caruur aragga naafo ka ah wiil yar baa waliba paralyze u dheeryahay saddexdii kale waxay noqdeen 3 caruur oo aad xaaladoodu u daran tahay inaan xuska ayaa u raacsan oo waa 15 sano way suurtagal weeyeen inaan halkan soo fadhiisino xaaladda ay ku sugan tahay awgeed inanina waa paralyze waa 16 sano iyadana awood lagu soo qaado ayaa la tahri waayay oo guriga ayaan ku booqan doonaa inan yar oo paralyze ah oo isagu xamil waayay inta halkan la keenayna waa la celiyay marka insha Allah saddexdaasi qof markay xafladu inoo dhamaato ayaanu ku booqan doonaa guriyaha ay ka degan yihiin caasimada Soomaaliland Hargeysa insha Allah caruurtan ciidsiinta waxaan ugu talagalnay lacag dhan ilmihiiba $50 halkan ayaan ku guddoonsiin doonaa insha Allah waxaan aad uga xumahay inaan madax fara badan aan ogeysiiska gaarsiinay inay xafladda nagala soo qayb galaan balse codsigayagii ay naga soo ajiibeen xoghayaha xisbiga Unud iyo guddoomiyaha naafada Soomaaliland oo kaliya aad baan uga xunnahay run ahaantii farxad baan dareemi lahayd haddii dadkayaga iyo dalkayagu ayna barbar taagan yihiin haddaanu nahay dadka naafada ah laakiin taasina waa mid aad looga xumaado aadna aan uga xumaaday maanta run ahaantii Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hadal badan haama laga buuxsho kolay xafladu way noo bilaabantay agaasimihii iyo maxay haydeen qasnajigina way nala joogaan ururka waxa naga xasuusin ah dhaqaalaha aanu doorkan ku fulinayna ciidsiinta inaanay haba yaraatay cid naga gacan siisay jirin marka laga reebo walaalaha muxsiriinta ah ee reer Sweden oo ah walaalo mar walba hiiliyaho nala barbar taagan ilaa tan iyo maalintii ururka la bilaabay ilaa imika dawlad iyo shacab iyo hay'ad intaba waanu soo bandhignay waxaanu baahinay kiliibyo ogeysiis ah si loo wada qayb qaato munaasabada ciidsiinta caruurta balse cid nooga soo jawaabtay ma jirto walaalihii muxsiniinta ah reer Sweden iyo dhowr qof oo kala jooga Ingiriiska iyo Norway mooyaane cid kale oo hawsha naga gacan siisay ma jirto mar walba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaanu nahay tiimka Taftaline Girls walaalaha reer Sweden sidoo kale iyadana waxaan halkan aad uga salaamayaa afayeenka ururka hablaha aragga naafada ka ah Hooda Maxamed Iidaan waa shakhsi aad u active ah waana dhaqaale soo ururiyaha ururka mar walba waxay hiiliyaha u barbar taagan tahay sidii dal iyo dibadda ay isugu xiri lahayd xubnaha ururka aad baan iyadana u salaamayaa inkastoo aan jeclahay inay munaasabadii nagala soo qayb gasho balse way naga fog tahay intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa hadalkaygii xafladu insha Allah way inoo sii socon doontaa aad baan u mahadsantihiin Mahdi Yuusuf oo haysata inay yar oo aragga naafa Maxamed Khadar Awlo doonaa qadar lacag ah oo $50 oo ugu talagalnay iisiinta ilmahaasi waa 22 iyo $10 naga doonaa ilmaha labaad Nimco Deeq Ismaaciil oo ay haysato ayaan ahna inay yar oo aragga naafa sidoo kale waxaan guddoonsiin doonaa iyadna lacagta loogu talagalay iisiinta ilmahaasi oo ah qadar lacagteedu dheeyahay $50 oo ay ugu deeqeen hablaha aragga naafada ah maasantay maamadaasi sidoo kale waxaan u yeeri doonaa Cabdi Wahaab Axmed Cabdi oo ah wiil aragga naafa
maamo kasta waxaa la guddoonsiin doonaa qadar lacagtii u dhan yahay oo $50 ah kaasoo loogu talagalay ururka aragga hablaha aragga naafadii inay ku ciisiyaan caruurtooda sidoo kale waxaan ognahay inaan wadankeena ka shaqeynayno $50 salaajigeed maamo kasta waxaan uga soo dhignay $22 iyo $10 waxaan yeeli doonaa Axmed Mawlid Cilmi oo haysato maamo Sacda ahna wiil aragga naafa sidoo kale waxaan guddoonsiin doonaa lacagta ay ururku igmadeen $50 ay doonayeen inay ku ciisiyaan caruurtooda maamadaas inay naga guddoonto sidoo kale waxaan yeeli doonaa maamo haysata 3 caruur oo aragga naafa maamo Istaahil oo kala haysata Isra Khadardaad Cabdixakiin Khadardaad iyo Nafiisa Khadardaad maamadaasi waxaan guddoonsiin doonaa lacagtay ururku igmadeen oo ah $150 maadaama ay ururku ugu talagaleen ilmo kasta inay ku ciisiyaan lacag qadarkeedu yahay $50 ugu dambeyn waxaan ku soo dhaweynayaa Mucaad Cabdilqaadir Khadar oo ah wiil indhaha kana maamo ku guddoonsiinayaa lacagtay igmadeen بالصالحات لتربطا بالصالحات mid ka mid ah maamooyinka oo doonaysa kalmadeeda mahadnaqa inay xaan ka jeediso alxamdulilah ilaahay marka hore mahadle marka xigtana waxaan u mahadnaqayaa hablaha aragga naafada ee dadka caruurta yaryar ee aragga naafada ciidsiiyay ilaahay waxaan uga baryaa in miisaanka xasanaadka uu saaro meel kasta ka soo saarin cid kasta soo dhigatay in ilaahay uu ka abaal mariyo miisaanka xasanaadkana ilaahay ugu daro iyagana waxaan leeyahay walaalahay barta ka sii wada ilaahay khayr badan iyo ajar xasanaad ilaahay idinka siiyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinay wallahi runtii aad baan idinku faraxsanay aadna waan nooga farxiseen allah idinka farxiyaan leeyahay walaalaha salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh